السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عدنان إسماعيل حرسي كسو دوادا قعمة فرن قلب فرن. وحالي راه إن شاء الله ما أنت واقعتي سجالات وحالي راها برنامجك دراسة شرملك. إن شاء الله حنجعل الشير يا لايك يا كومنت يا ضد كل لو قارسيو. برنامج كني آدي أزبو في عيها وبرنامج أصليها ومدة الصومالي وحبضن بطريا وحبضن بوحالي راه فوضينيا. خاصة dadka waxaa la yiraahaa masalan qoraalka aqoonin si fiican amba waxaa la yiraahaa aqoonin waxaa la yiraahaa akhriska uu ku yara adag yahay marka aniga laftayda faa'iido ay ku jirto de maalin kasta waxaan tiragaranayaa luqadayda insha Allah inta si wanaajiyo laakiin inaka waxay faa'iido u tahay dadka aan fahmin afdashka yani maanta imka markuu waraaqahan aan soo qornay oo si fiican u eego oo warqad iyo qalin soo qaato oo markastaba uu qoro maskaxdiisa ku dhigaysa hadda tole imtixaanka waxaa la yiraahaa dhalashada lagu qaato jarmalka amba lagu qaato imtixaanka siyaasiga la yiraaho politicalka waxaa la yiraahaa si uu ugu fudaado marka insha Allah waxaan jecelnahay barnaamijkan inaa si xooga loo sheegareeyo ummadda Soomaaliya alas caawiyo jarmal baa joognaa wixii khayr kala insha Allah ha laga shaqeeyo maanta insha Allah waxaan ka hadlaynaa dadka ajnabiga ee jarmalka jooga waa loogahay wadan kasta wuxuu leeyahay muwaadini dad wadani ah iyo dad ajnabi ah dadka wadaniga waa dadka dhulka u dhashay amba waa dadka waxaa la yiraahdaa qaxootinimo ku soo galay oo isdhiibay oo waxaa la yiraahdaa hadduu wadankaas waxaa la yiraahdaa dadka qaxootiga qaabilo oo markaa xuquuqda dadka wadanka u dhashay iyo dadka markaa qaxootiga u warsaman yihiin iyo dad ajnabi oo waxaa la yiraahdaa u yimaada waxaa la yiraahdaa amba booqasho amba u yimaada waxaa la yiraahdaa shaqo amba u yimaada waxaa la yiraahdaa barashada marka dadka ajnabiga rag iyo dumar ee soo gala masalan jarmalka wuxuu xaq u leeyahay oo waxa la yiraahdaa dawladda uu ka codsan kara jarmalka oo waxa la yiraahdaa dawladda jarmalkuna ay ka yeeli kartaa marka maanta masalan haddaan ka soo qaado for example anigu waxaan imay xakan booqasho markaan waxaan doonayaa taskiir wareego meelahaas ka baashaalo booliskaanu tiga waxaan ku war waxaan rabaa inta la difaaco aniga familiga gabadha boolis iyo waxaa la yiraahdaa cid waxaa la yiraahdaa ay garab socoto oo ilaalisade marka taasi xaq maaha boolisku markay dhibaato ay timaado amba waxaa la yiraahdaa uu ku qasban yahay matalan inuu waxaa la yiraahdaa dhibaatadaada markuu arko in markuu qiimeeyo markaas oo kale ayuu waxaa la yiraahdaa hadduu isagoo rabo waxaa la yiraahdaa jarmalka ku xiran tahay inuu waxaa la yiraahdaa markaa familigaaga difaaco haddii uu ka arko inta qof xaalad khatar ku jirta laakiin مثلا qof caadi iska yimi nolol caadi iska yimi amba qof caadi iska shaqaysanaya oo مثلا yiraahdo aniga familigaaga hal difaaco gawaadhi iyo gurigayga la ilaaliyo dee xaq ma kula waxaa la yiraahdaa مثلا xuquuqda wadankaaga ka jiray inaad مثلا jarmalka la timaadid tiraahid anigu xuquuq baan ka rabaa jarmalka oo wadankaaga ka jirto oo aad ku leedahay dastuurkaaga wadankaaga waxaa la yiraahdaa ku siinayay marka jarmalka ma ku qasbana waxyaabo badan oo dadka ajnabiga ah waxaa la yiraahdaa inuu ku ogolaado marka insha Allah maanta waxaa la yiraahdaa waxaan eegaynaa amba su'aasha ku saleysan tahay waxa xaq u leedahay marka ajnabi aad tahay iyo waxay dadku war leeyihiin inaad fahamtid ayuu insha Allah su'aashani sagaalaad waxaa la yiraahdaa ka hadlaya marka soo dhawaada السلام عليكم سود وهذا إن شاء الله قيبتي سجالات وحالي راها دلاشة الجرمالكا سؤالك السجالات وحال هذا هاي فيلشيس جروند رشت جلد إن دوشلاند نور فور أوسلاندرن داز جروند رشت معناها هذا محي وحويان waa maxay xaqa uu ku leeyahay ee asaasiga oo ah waxaa la yiraahdaa qofka ajnabiga amba ajnabiyada waxaa la yiraahdaa jarmal gudaheed waa maxay xaqiisa asaasiga marka waxaa la yiraahdaa wuxuuna siiyay afar jawaabood waxa weeyaan a iyo b iyo c iyo d marka hal jawaab baa ka sax ah marka eedu waxa weeyaan shoot their familia macnaheedu waa maxay inay familigaaga difaacaan beedu waxa weeyaan mention vorde
macnaheedu waxa weeyaan beedu mention forde macnaheedu waxa weeyaan karaamada bani aadamka amba insaanka. seedu waxa weeyaan asylum yacni qaxootinimo inuu qofku ka codsado. asylum waxa weeyaan waa qaxootiga ayaa loo soo gaabiyey. deedu waxa weeyaan meinung frei heißt. meinung frei heißt macnaheedu waxa weeyaan xorriyat التعبير. deedu meinung frei heißt xorriyadda tacbiirka inuu qofku xor u yahay inuu cabiriyo. marka طبعا waa la ogyahay markaan short der family aan raahno yani inuu xamaayada amba familygaaga la difaaco. jarmalka hadda dhibaato weyn aan leedahay amba familygaaga khatar weyn ku jiraan uu difaacaya laakiin sidaan nii sheegay markii hore yani haddana marka matalan iska yaraaho inta iska tago yaraaho war familygaaga la difaacana wax dhibaato weyn aan jirin dee xaq ma u lihi maadaama aan ajnabi ahay. laakiin marka adigu aad tahay qof degan amba qof waxaa la yidhaahaa yani qaxootiga ku jarmalka amba qof aa ku tahay waxaa la yidhaahaa muwaadinka baasboorka haysta cas haysta oo muwaadin aa ka tahay dee jarmalka markaa joogtid waa ku qasban yahay. laakiin taada kale waa uu diraaseynaya haddii xaaladaadu si khatar u tahay haddii kale dowladdaada la hadlayaa. marka beedana waxa weeyaan karaamada insaanka dee karaamada insaanka ummadda dhan way ka wara dhexaysaa. يعني wax qof gaar ah inagu waxaan ka hadlaynaa wuxuu gaar u leeyahay qofka ajnabiga amba ajnabiyada ee jarmalka joogta. marka waxaa la yidhaha inaan karaamada insaanku waa wax yani dadko dhan u wara dhexeeya qof gaara ma iskale. waxaa la yidhaahaa deeduna waxa weeyaan xorriyat tacbiirda qof kasta waa cabiri karaa jarmalka laakiin waxaa la yidhaahaa qofka ajnabiga waxaa xaq kaliya uu ku leeyahay oo cad yani xuquuqdiisa isaga maanta markuu jarmalka joogo xuquuqdiisa isaga waxay tahay waa qofka ajnabiga. marka waxaa sax ah waa seeda waa asylum lujo amba qaxooti yani maanta jarmalka haddaad soo gashid oo waxaa la yidhaahaa aad doonaysid waxaa la yidhaha inaad qaxooti isku dhiibtid waa xaq uu ku ogol yahay dastuurka jarmalka uu ku qasban yahay. markaa u tagtid tiraahid anigu qaxootinima rabaa inuu faylkaaga iyo sheekadaada inuu darso xaqba ayaa taa uu ku leeyahay waana ku qasban yahay waayo dastuurkiisa ku qoran inuu dadka qaxootiga ah ka codsada inuu waxaa la yidhaahaa arrimahooda uu waxaa la yidhaahaa ka fiirsado. macnaha hadalka markaan soo gaabiyo seeda ayaa sax ah ee calaamada cas ay ku taalo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa inaa yo qeybta toddobaad insha allah alla sheer gareeyo. waxaa la yidhaha ummad badan baa doonaysa waxaan intay fahamto dastuurka intay fahamto waxay xaq leedahay iyo waxay xaq lagu leeyahay fahmaan. marka insha allah alla sheer gareeyo waa inoo yo waxaa la yidhaahaa xalaqada toddobaad.